asalaamu calaykum saaxiibayaal arooryo suuban kusoo dhowaada warkeena maantay waa maalin jimco ah 24 bisha 6 2022 dhagaysta haddaad kanaalkeena ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar waxay noo tahay dhiirigelin mahadsanid maamulada Puntland Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo samaysanaya isbahaysi adag ay kaga hortagayaan dowladda Xasan Sheikh durbaba xoga aan helayno ayaa sheegaya in madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Qorqor ay ku heshiiyeen inay sameystaan heshiis saddex geesood ah oo kala dhaxeeya Saciid Cabdullaahi Deni, Axmed Qorqor iyo Cabdicasiis Laftagareen. heshiiskan ayaa dhigaya in saddexda maamul goboleed ay iska bahaystaan wixii duulaan oo kaga yimaada maamulka Xasan Sheikh. durbaba markuu Xasan Sheikh xilka qabtay ayaa weerar afka ah lagu qaaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ay ku qaadeen mucaaradkii hore. siyaasiyiintii hore ee Koonfur Galbeed iyo xildhibaano kamida baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa durbaba barahooda bulshada soo dhigaya in doorasho laga qabto maamulka Koonfur Galbeed. wasiirka amniga Koonfur Galbeed oo xalay uga digay siyaasiyiintaasi inay khalkhalka ka daayaan maamulka Koonfur Galbeed una sheegay inaysan doorasho aysan dhaweyn xilligeedina la gaaray ee u fasiranayaan hadallada noocaas ah khalkhal lagu wado amniga Koonfur Galbeed. dhanka kale madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor ayaa aad uga baqaya siyaasiyiin hore ee ka mid yihiin Cabdiraxmaan Odawa iyo Mahad Salaad oo hadda noqday agaasimaha Nisaa. siyaasiyiintan ayaa aad loogu tuhmayaa inay rabaan hadda ka horna u tartameen inay noqdaan madaxweynaha Galmudug. siyaasiyiintan ayaa haysta hadda jaaniskii ugu fiicnaa kadib markii uu xilka qabtay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ah saaxiibkooda aad u dhow. dhanka kale Saciid Cabdullaahi Deni ayaanba ku qanacsanayn maamulkan Xasan Sheikh Maxamuud kadib markii uu ku soo guuldareystay madaxweynenimada Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Deni iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku heshiiyay in la isku tanaasulo wareegga koowaad kadib markii uu codbatay Saciid Cabdullaahi Deni. Xasan Sheikh ayaanba u tanaasulin. wareeggii labaad markii la gaaray Saciid Cabdullaahi Deni ayaa u tanaasulay Xasan Sheikh Maxamuud oo ugu deeqay codadkiisii. halkaas ay ballan marqaati leh iyo dhaar ku galeen in Saciid Cabdullaahi Deni laga digi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa kadib lagu booday oo xilkii ra'iisul wasaarnimo waxaa loo magacaabay Xamse Barre oo ka soo jeeda beesha ogaadeen. maamulka Puntland ayaana macquul la noqon in uu ra'iisul wasaare noqdo qof aan ka soo jeedin beesha Majeerteen. maamulka Puntland ayaa halkaasi ka qaaday cuqdad dheer iyo kadib markii guddiga dib u eegista laga reebay. sidoo kale maamulka Puntland iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa hadda isku diyaarinaya diyaargarowgii ugu dambeeyay dagaal ka dhan ah xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. dhagaystayaal waa naga intaas xogtiyan ku eegaynay isbahaysiga ka bilowday maamulada Galmudug, Puntland iyo Koonfur Galbeed. dhagaysta haddaad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar kanaalkeena. mahadsanid.